السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين والسلام يا خيارتا qiimaha iyo sharafta leh kusoo dhawaada muuqaal kale oo xiiso badan. Muuqaalkan waa muuqaal aan ka duubay dawga Sheekh Maran Maraayi. muuqaal dawgu waxa weeye dhulka cajaa'ibka aadka u quruxda badan isla markaana aad ku arkaysaa mucjisooyin waxyaabo la yaab leh. marka dawga waxaa lagu jiraa ilaa adigu marka ugu badnaato badh ayaa lagu jiraa. dawga waxyaabaad ku arkaysid waa meel saa wareegaysa, buurta ayaa saa ku wareegaysaa. isla markaana dawga haddaad saa uga baxday wadada waxaad ka duulaysaa laag ayaad ka duulaysaa oo waxaad ka duulaysaa buur dhakadeed weeye. marka laag ayaad ka dhacaysaa, gaadhigu hadduu dhaco lama arkayo oo gaadhigaas wuu burburaya, laagaasuna ka duulaya. dawga waxyaabaha cajiibkaan ku arkay markaad soconaysid waxaad soo oranaysaa marmarka qaarkood dib ayaad u noqotay, waayo cadceeddii sii dhacaysay aan soo dhaafnay ayaan kasoo jeednay ayaad arkaysaa marmarka adoo halkii cadceeddu ka dhacaysay foota saaran. taana waxaa keenaya wuxuu leeyahay dawgu dhul wareegaya, wareegayo saasuu isaga daba wareegaya. marba kor ayuu baxayaa. wadadii aad soo martay markii ugu horreysay ayaad haddana arkaysaa adoo dul maraya ama ay kuu soo baxaysaa halkaad markii soo dhaaftay. marka waxyaaba la yaab kale aad ku arkaysid weeye. sidoo kale waxaa ku xardhan subxaan allah, allahu akbar ayaa ku xardhan sida idin jeedaba halkan ay kasoo bixi doonta insha allah. marka baskan saarnayn ayaa halka ka muuqda. muuqaalkan muuqaalkaygan ku duubayay waxaan ka duubayay daaqada, muuqaal guud ma ahayn, daaqadan fadhiyay ayuu magacad saa uga dusiyey. marka waa meel aad iyo aad qurux badan, waad ujeedaa quruxday leedahay iyo qaabka ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigay. waa meelaha aan la yaabay mucjisaadka awoodaha ilaahay aad ku qiraysid ama awoodaha ilaahay aad ku arkaysid. haddii qoraxdii ayaa dib ugu noqonay, taana waxaa keenaysa wadada ayaa dib u noqonaysaa. halkii markii kasoo bilaabantay ayaad moodaysa inaad dib ugu noqonaysid. sidoo kale buurta dhagaxeedu qaabkan ayuu u egyahay. halkaa waxaa ka muuqda basaskii naga horreeyey ayaa ka muuqda. sidoo kale waxyaabo kale ku xardhan wadada ku xardhan sida shirkadaha ka jira dalka lis baa ka mid ah, sonkabel baa ka mid ah ayaa lagu xardhay dhagaxaanta. marka waxyaabo fara badan ayaad ku arkaysaa. waa meel aad iyo aad u mucjisa. hadda halkan dib ayaad noqonay, halkaan markii soo dhaafna oo kale ayaan dib u noqonay. way ujeedaan allahu akbar inay ku taalla halkaas. waa meel mucjisa. dadkuna markay marayaan takbiirta iyo subxaan allah iyo ducooyinka ayay akhristaan, waayo waa meel mucjisa. ilaahay hadduu kugu sababo waa meel khatara. gaadhigu hadduu saa u ciiro waa ka baxayaa, isla markaana lama arkayo, laagag ayuu ka duulayaa. hadduu dhacona shayba meel ayaa laga soo qaadaya, waayo meeshu waa buur iyo laagag iyo dhul aada u dheer weeye. halka waxaad uga jeedaa wadadii aan soo dhaafnay inaan dib madiina ugu noqonay, oo tii aan markii soo dhaafnay waxaad uga jeedaa xaggaasaad ka arkaysaa. markaa saas u wareegaysaa. waxaan lagu jiraa ilaa badh iyo wax ka badan ayaa lagu jiraa. muuqaalku aada ayuu dheeryahay. marka insha allahu tacaala waad fiirsan doonta. dawgu wuxuu ka mid yahay meelaha lagu dalxiiso, isla markaana markaad maraysid waxaad ku arkaysaa xiliyadan oo kale. dawga waxa weeye dhul cagaaran oo doogga iyo barwaaqada iyo nimcada ku taala aad arkaysid. xilligan haddii waa habeen qoraxda sii dhacaysa aan marayno cidma joogto, balse mararka qaar markaad maalintii maraysid waxaad arkaysaa dad fara badan oo sawirro iskaga qaadaya, meelaha taagan oo qaar wax iskaga duubaya. marka meeshani meel aad la yaabaysid weeye. waxyaabaad
aad ku cajabinaysa isla markaana aanad ka xiisa dhacayn oo aad soororaysid miska si joogtaa yacni miskaga qofku iskaga baashaalayo quruxda iyo wadanka iyo nefiska iyo nicawda ka dhacaysa. Masha Allah aad bay qurux badan tahay meeshan run ahaantii aniga aad bay ii soo jiidatay oo yacni waa ka helay meeshan. Waa meel aad iyo aad u qurux badan run ahaantii. Sidoo kale dhagaxaanteeda waad yaabaysaa, waa dhagax nooc kale u eg midab kale ah. Wallahi waad yaabaysaa dhagaxaanteeda waa dhagax nooca u eg weeye qaabkaas u eg dhagaxu. Sidoo kale waxaan ka raali gelinayaa muuqaalka kolley mool ayaan ku duubay oo yacni gaariguna aad buu dheereynayay oo yacni muuqaalka caadi uma fiirsan kartid ama si degan meel mooye waxaa ku jira meel waa aad u dheereynayo ood ku daraadaraysid yacni kamarada weeye taasina oo yacni hadii xoog u dheereynayo gaarigu kamaradu aad u qabsan mayso meesha. Balse masha Allah iska fiican yahay dee waayo quality-ga moolka weeye. Waxaa hadduu mool yahayna muuqaalkiisu sidaas iska noqon doontaa. Marka muuqaalku hadduu qurux badan yahayna xagga hoose ayay wala wadaagi doontaan insha Allah. Sidoo kale muuqaaladan oo kale haddaad doonaysaan aan soo dhigno isla markaa yacni aan safar ku jirno oo kale xagga hoose inay igu soo sheegi doontaan. Sidoo kale qofkii aan aqoon maqlay shiikh ama dawga shiikh maqlay yacni shiikh maqlay meesha shiikh la dhaho waa meel caalamiya oo laga sheekeeyay yacni aad arag maanta iska baraan ku leeyahay waa kan dawga shiikh lagu sheego. Inkastoo kale dee aan xag keliya wax ka duubayo daaqad keliya wax ka duubayo haddana kolley sawir guud ayaad ka qaadan kartaa. Mar walbana wuxuu dhinacun buu ka banaaya yacni dhinacan gaariga dhinaciisa kale waa buurtii oo yacni gaarigu dacdan uma dhacayo wax kale u dhexdo xitaa buurtaa soo celinaysa. Dacdan ba halisa mar walba oo jar ah oo gaarigu yacni dacdan buu duulayaa. Sidoo kale masha Allah haddii waad uga jeedaa halkii aan markii kasoo bilaabnay mudane ku noqotay halkii aan kasoo galnay aan afka saarnay haddana dib ayaan noqonay. Marka saas uu isaga daba wareegaya isla markaana marba maar ayaa kor u baxaya. Maarkii aad soo martay mid aan ahayn ayaad kor sii koraysaa oo kor ugu sii baxaysaa. Markuu socdo xogayba maar kale kor u korayaa marka buurta fiinteedu tagayaa ilaa intuu kasoo bilaabo taxadka buurta. Buurta aad aragtay sidaa u dheer ayuu maaragtay intuu xagga hoose kasoo bilaabo ayuu wuxuu tagayaa buurta halkeeda ugu sarreysa siduu isaga daba wareegayo. Sidoo kale waxaa mudan yacni gaarigu hadduu gaari weyn yahay waa ku adag tahay ama waa ku adkaanaysa yacni dhaafitaanka baabuurta kale yacni waayo hadduu is dhaho wareeg oo noqo waxaad arkaysaa yacni buurtii wadadii baa qabsanaysa ciriiri noqonaysa gaari kale dabada ku dhufanaya. Marka masha Allah kolley muuqaalka waxbaa imaan ka jaray yacni ma dhammaystirna oo yacni qayb baa ka dhiman balse muhiimaddu intaas weeye. Dawga weli waa sii socdaa xaggaas weli kasii harsan yacni buurtaasu la dhammaanaya yacni buurta xaggeeda hoosaan kasoo korna wataa buurtii waad ujeedaa inta dheer laag tahay. Waxaa soo jara ayaan la soo laabanay ama kusoo wareegnay. Marka muuqaalka kolley intaas bay muhiimaddu ahayd inaan tuso iyo inaan la wadaago dawga shiikh. Wallahi horta qofku xitaa markaanu arag oo hore u arag wuu ku wareerayaa meeshan ama wuu ka baqayaa. Qofka aan hore u marin wuxuu sooranayaa bismillah meeshan waa halis bus dhahayaa. Balse qofka dhowr jeer mara iskala qabsanayaa yacni caadi iskala qabsanayaa. Marka dhowr jeer qof markuu maro iskala qabsadaa. Marka muhiimaddu intaas ma ahayd inaan tusiyo dadka aan aqoon ay bartaan dadka yaqaanana dawba yaqaaneen hore u yaqaaneen. Marka masha Allah muuqaalka waa kaas fadlan muuqaalka like saar sidoo kale subscribe saar channel-ka
sida asxaab badan. Halkan waxaa ku yaala guryo jarka saaran oo yacni meel jarka laalaadaad ku arkaysa guryo qaarkood. Wallaahi guryaha ma weydiin waxa ku jira iyo dedegan, balse waxaan ku arkay guryo laaga saaran, yacni xagga haddaad uga degtid laag baad ka tuulaysaa. Waxay saaran yihiin meel harisa oo yacni dawo ka mid ah ay ka laalaadaan. Koley maanta aniga igu horreysay guryahan maalmihii hore caadi uguma fiirsan jirin, hore usii maray meesha. Waa markaygii labaad aan soo maro halkan. Waxaan jeclaan lahaa wallaahi gaarigan istaageen anuu muuqaal iskaga duubo meeshaas. Aad baan u xiiseeyaa halkaas inaan joogo, inaan muuqaal iskaga duubo, sawir iskaga qaado, waayo qof walba waa xiiseeyo. Meeshaas aad bay u qurux badan tahay. Weli waxaan sii tegi lahaa fiinta sare aan sii bixi lahaa buurta, marka waqtigaan ii saamaxayn. Insha Allah mar kale aan ka dhigan doonaa aan marayno. Marka muuqaalkii waa kaas. Fadlan muuqaalka like saara, soo kale subscribe saara channelka, soo kale kiciya channelka muuqaalkan ku kala kiciya. Marka aan idinka dareemo asxaabta qaaliga ku xiran channelka, waxaa idinka dareemo maaragtay inaad joogtaan channel ku xiran tihiin. Sidoo kale asxaabta badan ee nagu xiran koley muuqaalada waa aragteen oo dee channelka asxaab badan baa ku xiran, isla markaana muuqaalada aad wada daawadaan. Waxaan idinka codsan lahaa inaad gambaleelka furataan, yacni oo qaybta gambaleelka waxay idinka saacidaysaa muuqaalkii marka soo dhigno aad aragtaan daawataan. Marka insha Allah muuqaalo intaa kasii fara badan idin wadaagi doonaa insha Allah. Fadlan muuqaalka like saara, sidoo kale subscribe saara channelka. Aad bay mahadsantihiin dhammaantiin. Waan salaamayaa, aad iyo aad ayaan salaamayaa. Muuqaalkii intaas ayaan ugu talagalay in la wadaago. Waxaan leeyahay muuqaalkan muuqaal kale xiga oo xiiso badan ayaan idin la wadaagi doonaa insha Allah. Haddii Ilaahay naftiina daayo, aad ayaan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad iyo aad idin jecel dhammaantiin asxaabta qaaliga iyo faraxsanaada mar walbaba. aad iyo aad ayaan salaamayaa.